barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa wararka sheegaya in uu barafka ku daboolan ka dhalaali doono qudbiga koonfureed ee dunida taasina ay dhabaha u xaari doonto in qaarad cusub oo dhuleed ay ku soo korodho dunida aynu ku noolnahay waana xogo iyo daraasado ay soo bandhigeen kooxo baadhayaala sida ay baahsay jariirad ka soo baxda waddanka Jarmalku baaritaanada culimada dhanka deegaanka iyo cimiladu sameeyeen waxay adkeynayaan in mustaqbalka fog qudbiga koonfureed ee dunidu noqon doono dhul caadi ah kadib markay isbeddelka cimilada ee maalinba taxta soo diiranaanaya uu keeno in barafka halkaa ku daboolan dhalaalo oo dhanka dambe inuu dabamaro xilliga ay ku qiyaaseen in qaaradda cusub oo ah mid masaafo ballaaran ay soo bixi karto ayaa ah marka ay isku darsamaan labada Ameerika oo ay gudho oo la waayo badda Kariibiyeenka halka sidoo kalena ay qaaradda Ameerika iskaga darsami doonaan qaaradda Aasiya dhanka qudbiga waqooyi ee caalamka xilli ay qaaradda Afrikana dhanka waqooyi u ruqaasan doonto oo ku darsami doonto qaaradda Aasiya baadhayaashan oo ka tirsan jaamacadda Yale ee dalka Mareykanku waxay dib u eegeen khariidadii hore ee caalamku lahaa iyagoo soo bandhigay inay suuragal tahay in qaaradda qudbiga koonfureed ee dunidu ay hore qayb uga ahaan jirtay qaaradda Afrika laakiin ay kala go'een muddo malaayiin sano laga joogo halka sidoo kalena ay khubradan dhanka deegaanku ku adkaysanayaan inay dhici karto inay meesha ka baxdo badda Kariibiyeenku dhammaan aragtiyaha ay qabaan baadhayaasha jaamacadda Yale oo ah kuwa saadaal u noqon kara oo aan xaqiiqadooda la hubin ayaa ah kuwa aynaan bulshadeena maanta noolan sugi karin in la gaadho iyo in kale maadaama xilliga ay saadaashooda ku cabirayaan khubaradu ay tahay muddo malaayiin sano loola iyadoo qaybka oo dhanna uu Ilaahay u og yahay